Waxaa maanta si rasmi ah markaasi la ciyaaray kulan ciyaareedkii tartanka degmooyinka gobolka Banaadir kulankiisii koowaad waxaana kasoo qayb galay dhammaan furitaanka degmooyinka gobolka Banaadir qaybihiisa kala duwan iyo sidoo kale degmada Balcad oo tartankan si weyn uga soo dhex muuqatay martina ku ah. Tartanka furitaankiisa waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale mas'uuliyiinta xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, bahweynta isboortiga dalkeena Soomaaliya iyo dhammaan kooxaha ka qaybgalaya degmooyinka gobolka Banaadir. Kulanka furitaanka ayaa maanta si rasmi ah markaasi loogu daahfuray tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir. Degmada Gubadley oo sanadkan difaacaneysa koobka degmooyinka gobolka Banaadir iyo sidoo kale degmada Hiirwa ee gobolka Banaadir. Labadan degmo ayaa waxaa ka dhexeeya xifaaltan aad u weyn ee xilli ciyaareedkan iyagoona ay markaasi soo bandhigeen ciyaar aad loo jecleystay oona ka duwan ciyaarihii hore ee diyaargarowga xooggan ee ugu jiray. Degmada Gubadley oo koobka horey u qaaday ayaa markaasi bandhig ciyaareedkeeda kulan ciyaareedka maanta ay soo bandhigeen ay ahayd mid markaasi aad u sareeyay walow natiijada ciyaarta ay markaasi heleen aysan ahayn mid markaasi ay ku qanacsanaayeen dhammaan mucaashaqiinta kooxda degmada Gubadley ee gobolka Banaadir. Degmada Hiirwa ayayna markaasi qaybta hore barbara ayay la galeen, qaybta labaadna eber iyo eber ayay kusoo idlaatay. Degmada Hiirwa ayaa dardar xooggan ay markaa kusoo bilowday xilli ciyaareedkan iyadoona ay wax badan iska soo bedeleen qaab ciyaareedkii hore. Sidoo kale 3 sano oo xiriir ah ayay degmada Hiirwa waxa ay ku hartay group stage-ka, sidoo kale 1 sano oo kaliya ayayna kasoo gudubtay. Marka la fiiriyo degmada Gubadley waxa ay markaasi ay soo ciyaartay oo kaliya 2 xilli ciyaareed, 1 xilli way ku guuleysatay, 2 xillina markaa group stage-ka ayay ku hareeyeen. Waxay haystaan rajo aad u wanaagsan xilli ciyaareedkan ayay markaasi bandhig wanaagsan ay ku soo bandhigeen. Labada degmo sanadkan waa markii ugu horeysay ee iskaga hor imaanayaan tartanka degmooyinka ee gobolka Banaadir marka laga eego Gubadley iyo Hiirwa oo kulankoodii ugu horeeyay markaasi ay ciyaareen. Sidoo kale degmada Gubadley ayaa markeedii ugu horeysay iyadoo degmo ah ee sanadkan ku ciyaareysa maadaama sanadkii hore iyadoo deegaan ah ayay ku guuleysatay tartanka degmooyinka gobolka Banaadir. Sanadkan iyadoo degmo ah maxaa laga filan karaa? Degmooyinka gobolka Banaadir waa degmooyin aad u baaxad weyn oo tartankan ciyaaraya. Waxa ay markaasi wataan ciyaartooy aad u xiiso badan oo kana duwan tartankan waayihiisa. Waxa ay markaas soo bandhigeen degmooyinka gobolka Banaadir ciyaartooy aad u sareyso. Haddii aan eegno degmada markaasi Gubadley sanadkan ciyaartooydooda waxay yihiin kuwo aad isku soo diyaariyay, doonaya in markaan ay difaacdaan koobka iyagoona doonaya markoodii ugu horeeyay inay ku guuleystaan iyagoo markaasi degmo ah. Miyay u rumoobi doontaa riyada degmada Gubadley haddii Gubadley ay markaasi qaab ciyaareed wanaagsan ay kusoo shartagaan iyo kubad markaasi deganaan iyo kalsooni ay ku dheehan tahay? Waxaa laga yaabaa inay koobkan qaataan walow galabta ciyaarta ay soo bandhigeen ciyaar aad u wanaagsan. Waxa ayna dhaliyeen 2 gool, 2 gool laakiin waxay noqdeen garab dhaaf ama offside sidaad u taqaano oo kooxda ayay qaladkaasi galeen. 2daasi gool ayayna ku hormareen oo laga diiday. Haddii aan eegno natiijada degmada Hiirwa ee tartankan ka keeni karto, degmada Hiirwa oo sanadkan waxaa markaasi ay sameeyeen dadaal aad u dheer oo ay sanadkan doonayaan inay guul weyn ay ka soo gaaraan tartankan. Waxa ayna kulankoodii koowaad ay la ciyaareen degmada Gubadley ay ka heleen barbaro oo markaasi eber iyo eber ah. Tartankan waxaa laga baran karaa kulamada furitaanka ee xilli ciyaareedkan ee si weyn loogu daahfuray. Wax gool ah markaasi la iskama dhalin xilli ciyaareedkan, waxaana la filayaa kulamada kale in isbedel weyn markaasi ka yimaada. Xilli ciyaareed aad u xiiso badan ayaana la filayaa. Maalinta berita ah 3 kulan oo derbi ah ayaa markaasi jirta, taariikhduna tahay 9 bisha 9aad 2024 maalin Isniin ah. Kulanka koowaad
Group B waxaa ciyaari doona Warta Nabadda iyo Daarusalaam waxay ku ciyaari doonaan garoonka Engineer Yarisow waxayna ciyaari doonaan 8 saac gow ah xilliga 8 duhurnimo ayay ciyaari doonaan. Isla Isniinta waxaa jira kulan kale aad u xiiso badan oo la wada sugayo ay yihiin Kaaraan iyo degmada Hodan waxaana lagu ciyaari doonaa garoonka Engineer Yarisow waana Group A ayay ciyaari doonaan 10 galabnimo ayay ciyaarahaasi bilaaban doonaan. Kulanka kale waxaa wada ciyaari doona degmada Shibis iyo sidoo kale degmada Garas Valley. Group B ayayna ka wada tirsan yihiin garoonka Jaamacadaha ayaa lagu ciyaari doonaa. Ciyaartaas ayaa markaasi la ciyaari doonaa 9 galabnimo ayay bilaaban doontaa. Saddexdaas kulan ayaa markaasi jiro beri oo aad u xamaasad badan kana duwan tartanka oo idil oo la filayo in ay markaasi isbedelaan degmooyinka gobolka Banaadir oo xil ciyaareedkan markaasi